لا tukada oo saxo sooma rabadanka saka la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sadninkii hela waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaan alxamdulillahi rabbil aalamiin wa usalli wa usallim ala al-mab'uuth rahmatan lil aalamiin wa hujjatan ala al-khalqi ajma'in salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد walaalayal wali waxa inoo socda xalqadihii aynu ugu talagalnay salaada inaynu ku fahanno salaadaynu inay noqoto salaatuna xayaatuna sidaynu barnaamijka ugu magac darnay inay nolosheena saamayso alla subxaanahu wa tacaala sida ugu habboon inay noogu xidho baynu barnaamijka ugu talagalnay qeybtii koowaad ee barnaamijka waxaynu kaga soo hadalnay qiimaha salaada xalqadaha dambena insha allahu tacaala oo tani tii labaad ay tahay waxaynu gudagelaynaa biidni illaahi caza wajal inaynu fahanno salaada waxyaabaha la odhanayo waxyaabaha la sameynayo walaalayaal waxaynu soo marnay salaada weyninka la weyneysiiyey inay ka mid tahay in qofku xaalad dhamaystiran salaada uu ku gelayo qalbigii baa la ilaaliyey oo haddii maankaagu maqan yahay tukan maysid laa taqrabu الصalaaة wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun qofkoo mashquulsan oo maskaxdiisu mashquulsan tahay yaanu tukan haddii kaadi saxaro ay hayso haddii waxa weeye cunto loo soo dhigo oo laga aqiimo inuu cuntadiisa iska dhamaysto in qalbiga la diyaariyey jirkii baa la diyaariyey waa la weyse qaatay ama waa la maydhay maryihii ugu fiicnaa baa la xidhay meel daahira oo nadiifa oo munaasiba ayaa lagu tukanayaa waxaa loo jeesanayaa qiblo oo midig iyo bidix iyo meel walba isaga jeesan maysid waxaa lagu sameeyaa hal jiho oo waxa weeye qiblada ama kacbada xaggeeda ah waxyaabahaas oo dhan ujeedada looga jeedaa waxay tahay in lagu diyaariyo salaadii in lagu diyaariyo walaalayaal marka waxyaabahaas oo dhan lasoo sameeyo ee qofku alle subxaanahu wa tacaala is hortaago isu diyaariyo salaad inuu galo waxaa ugu horeeya ee uu ka bilaabayaa markuu qiblada u jeesto waa inuu yidhaahdo allahu akbar markuu qiblada u jeesto ee uu doonayo salaada inuu xidho waayo salaada allahu akbar baa lagu galaa xaaladda noocaasa ee qofku alle subxaanahu wa tacaala hortaagan yahay qalbigiisu khushuucsan yahay qiblada uu qaabilayo ayaa waxaa la yidhi waxaad ku gashaa allahu akbar macno weyn bay ku fadhidaa allahu akbar ilaahay baa ka weyn wax walba allahu akbaru min kuli shay wax kastoo qalbigaaga ku soo dhacaya wax kastoo aad ku fakerayso makhluuq kasta si kasta ha u weynaado ilaahay baa kasii weyn ereyga noocaasa markaynu odhanayno salaada ku gelayno qofkii khushuucsanaa ee ilaahay soo qaabilay ee qalbigiisa ka buuxiyey ee ku camiray allah jala jalaaluh qofka noocaasa markuu leeyahay allahu akbar ereygaa uu odrhanayo iyo qalbigiisu waa wada socdaa dadka qaar waxaa laga yaabaa allahu akbar inuu afka ka leeyahay laakiin waxyaabo kale maskaxdiisa ay ka buuxaan oo uu ku mashquulsan yahay mar hadday ilaahay ka mashquuliyeen qofka noocaasa waxaa mashquuliyey qalbigiisa ka buuxa ayaa la weyn oo agtiisa ku weyn idan waxaynu u baahan nahay qalbigeenna iyo lafdiga ereyga aynu ku hadlayno inay isla jaan qaadaan markaad leedahay allahu akbar min kuli shay yacni adduunyadii aad ka timi ubadkaagii xaasaskaagii wixii aada haysatay asxaabtaadii shaqadaadii gurigaagii gaadhigaagii cid kastoo aada weynaysiinaysay waxaad leedahay allahu akbar
wax kastoo ku mashquulin lahaa ilaahay baa ka weyn. allahu akbaru min kuli shay. ilaahay baa wax walba ka weyn. waxay taasi tilmaamaysaa qalbigaaga ilaahay mooyaane wax kale inaanu ku jirin. qadiyadda labaad, in aada iska siibto isla weyninka iyo qabta iyo kibirka iyo qooqa ka noocaasa inaad meesha ka saarto. waayo ilaahay baa aada u cibaadeysanaysaa. cibaadaduna ilaahay in loo dulloobo weeye. wa cibaadaة الraxmani gaayaة xubihi mac duli caabidihi humaa qطbaani. udub dhaxaadka cibaadadu waa ilaahay in laysu duleeyo iyadoo jacayl u weheliyo. qalbi kibir uu ku jiro, isla weynin, isla cajabay, wuxuu diidayaa allahu akbar kelmadda uu ku dhawaaqayo ayuu diidaya. walaalayaal, allahu akbar markuu qofku u odhanayo wuxuu ku darayaa ficil oo isagoo iska taagan allahu akbar odhan maayo. qacmuhu kor u taagaya, ama dhegihiisu la simayaa ama garbihiis, qacmaha kor buu u qaadaya. markuu sidaa leeyahay ilaahay baa weyn, ilaahay baa wax walba ka weyn, ficilkanuu samaynayaana waxay la socotaa waxa uu odhanayo, waxay la socotaa waxa qalbigiisa ku sugan. ilaahay cidina inaanay ka weyneyn, shayna inaanu ka qiimo badnayn. sidaa awgeed uu mutaystay qalbigeenna inuu buuxiyo, oo intaa aynu u cibaadeysanayno wax kale qalbigeenna aanu soo gelin. allahu akbar marka la yidhaahdo qofku wuxuu xidhay cibaadadii buu xidhay. waxaa laynoo jideeyey salaada marka la galo ee la xidho, waxaa laynoo jideeyey hordhacyo salaada hordhac u ah oo salaada lagu furfuranayo. hordhacyadaas way badan yihiin. inagu in sha allahu tacaala 2 ama 3 baynu macnahooda dul istaagaynaa oo aynu wax ka tilmaamayna. subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka ismuka watacaala jaduk walaa ilaaha gayruk. allahuma baacid beynii wa beyna khaطaayaay wajahtu wajhiya liladii faطra الsamaawaati wاlarda xaniifa wma ana min almushrikiin. hordhacyada salaada hordhaca u ah inta aan bisinka iyo faatixada iyo cibaadooyinka lala iman, 3daas istiftaax ee salaada lagu furfurto ayaynu in sha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa, macnayaashooda dul istaagi doonaa. aynu in sha allahu tacaala macnahooda iyo xikmadooda iyo waxa ku sugan biidni اllahi caza wajal aynu biidni اllahi caza wajala dul istaagi doonaa xalqada soo socotay in sha allahu tacaala. wailى dalikum اlxalqa astawdicukum اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala.